السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما أحسن صاحبيال من البرشوكتان هل كان دجال سعتنا نواتنا بالخير أحمد سود هذا مركل قلب ونحسن يعني من البرشوكتان بدون إذا كلا النهاية أنا جنا قلب النوتة قلب ونحسن أنت وقتي ذا كلا إن وقتي والبي أنت ونحسن بالخير سودو. هذا ما سنتين أصحابتي إنه كحر الجنال كيجا وإسلانتي يقضي جدي وهل كان إذا كسلامة مركلة waxaan leenahay galab wanaagsan maalin wanaagsan waqti kasto idin tahay oo wacan oo wanaagsan maalmo cusub aan ugu soo biiray jawi cusub sidii hore ka bedelan dalku shalay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo joogay maantana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud joogo marka way kala duwan tahay waxaan leenahay ilaahay xeertay dhamaan mas'uuliyiinta in wadanka ku soo qabtay kuwa hadda joogo kuwa hadda ka dawladeenayba ilaahay khayr ka waafajiyo dhamaantood أنا قلنا إلهي خير كان وافجيو سودا وهذا جنال كسبسكرايبتي وحيرا كده موضوع أركتان بعد عكسية ألا يهديك أي وهاجك بالخير أبو ما سنتهاي طبعا صاحب بيال مركز سودا وهذا هتي أنا عصبت هنا فل شانل كسبسكرايب صاروا قبل كنا فروسي مقال والبحال كنا نسوق لنا وكوسو قارو لقرأ مقال كنت لقيت أبي مهم نوتها مقال كما داوني سيد إن أنا لقيت هالمامين وشيء جريسي لصحابته هذا فرن قرار كان نقوله ذاته وحي فكرة هذا ما ركتي وأتكلم بني سو مقالك يسوع كل جودها برامج ده نسوق لنا براح يجي يوتيوب كان كلنا هنيجي بالخير طبعا حالة ولدك الدورة شكل عادي عادوا حماسة بدن ورنتي حماسة دي حسي هذا وضعته المدة بدن بعد دورة شيء للسوقي إنه مرون دل كان ودورة شكل عادو جودها المدة الصومالية دل يدبنيرو البيتشوغان maalinta habeenkii xalay ahaa waa habeen la wada sugayay buu ahaa 16 May 15 oo qayb kamid ah iyo 16 oo qayb kamid ah ay fursad dadka Soomaaliyeed u helaan inay istortaan madaxweynihii tobnaad baa loo doortay Soomaaliya xalay oo Xasan Sheekh Maxamuud ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynihii ka horeeyay oo madaxweynihii sagaalaad ah ayuu xilka ka guuleystay sunnaha dawladnimada weeye macnaheedu in si dimuqraadiyada la isku doorto xilka loola kala wareego madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa dadka Soomaaliyeed uga mahad celinayaan muddadii madaxweynaha ahaa intii dawladnimada isagu mas'uulka ka ahaa waxna wuu saxay waxna waa ka khaldamay waxna wuu qabtay waxna way u dhinaayeen waa ku bogaadinaynaa waana uga mahad celinaynaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo mar labaad dadka Soomaaliyeed iyo xildhibaanadii wakiilada ahaa ay fursad u siiyeen inay madaxweyne noqdaan isagana horuu madaxweynuhu soo noqday haddana waa noqday isagana runtii hawl badan baa u taala waxaa leenahay madaxweyne allaha kula garab galo xilkaas aad ummadda Soomaaliyeed u qaatay ayna kugu doorteen dadkii ay Soomaalida wakiisheen sababtay dadku doorasho shacabku ma laha laakiin dad bay wakiisheen oo xildhibaano oo matala dadkaas madaxweynaha doortay si aqlabiyada waliba 214 xildhibaan dabcan dadka Soomaaliyeed ee nagu xidhan horta xalay bilkhayr telefoonka iPhone-ka iska jibis سيو بودبوديسي بخير فريش ما حلا بودبوده مش هيك حلا بودبوديس ورتا مشرح هاي بدتي بالخير مصابحين ايه ودحي لكن ده انت هراء الدوريدي عليكم مشرح يقول دحي انا ده dadka Soomaaliyeed waxaan taageero oo Xasan Cali Khayre طبعا meel wanaagsan baan nimi دالنا تين حس على dadka Soomaaliyeed kala aragti kala fikir iyo runtii kala mabaadi'du wanaagsan waxaad wanaagsan dadka qaarkiina madaxweyne Farmaajo taageerayeen oo rabeen inuu soo laabto horta hore Yuusuf waxa la laba dhagax hadii isku dhacdo dhagax jabo waarun garina laba nin kama wada qoslo horta hore wadankaani madaxweynuhu rabay madaxweynahan u soo baxay mabaasantii laakiin bulshada Soomaaliyeed oday iyo habar iyo gabar iyo islaan iyo wadaad iyo intaba qof ma صدمك إذا ضبطي حياتي مشرح قف ما مدوتي أنا هو مصدق إذا ضبطاس مشرح أرتوري مت جوني ما أنا ولا عادي أو كان موتي كل جنيه وده زي أول كلامه مهني لكن واحد يجي هاد متكي صبحه أو متكي أو أفر تحبه صاحبته عن مدوتي أركي أفر حب اسكو صاحبتي أنا لبوتي لبوتي لبني أوتي markii laba ay hartay kan watay midaan watay iyo mid kale oo aan wada markii laba hartay de laba isku hartay hala wadan iyo hala wada aadiya baadinta markaas isla markii xabada bilaawd ma TV-ga daawada gurgurad kaaga dhawaad aadiya
marka horta bilkheer doorashadaas ma bilaana iga dhacday telefoonka ka raacay samirgii imaanaha ka siiyo dadkii Soomaaliyeed ee runtii xalad hore ku dibaldega magaalada Muqdisho iyo guud ahaan meel walba Soomaalidu degtana iyagana aad baan halka uga salaameynaa madaxweyne xasan sheekhna waxaan leenahay ilaahay ha ku baastiro xilkaas hambalyo waxaan rabaa hal mar anigana madaxweyne xasan hadii ay noqoto inay gaarto muuqaalkayga inaan wax gaarsiiyo horta hore dadkaan xilka markii uu wada orday anigu waxaan dhihi lahaa qof kasto ilaahay jecel yahay ilaahay xil uma dhiibo waayo xilku waa dambi aadan macnaha aadan qaadi karin waa mas'uuliyad aan macnaha la yeelsan karin maanta laakiin ilaahay qofkii oo u dhiibay waxaan leeyahay alla uga cabso xasan sheekh waxaan leeyahay shalay wixii ka qaldamay maantiina ka qaldamin xasan sheekh waxaa soo martay fursado aan soo marin musharaxiinta asi ka horeysay iyo kuwa hadda asi ka dambeysay inay soo mari doonto aan la ogeyn laakiin hadda madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo kale 4 sano wadanka soo hayay wax la og yahay oo loo wada jeedana wuu qabtay waxyaabo ka qaldamo ummadda ay ku dhaleeshana way jirta adduunyada ilaahayna qof kasta oo musharax ah midaan dhaliil lahayn ma jirto midaan caayil lahayn iyo ceebna ma jirto haddana wax wanaagsan oo qabtaa jirto musharax kasta oo ku faani karo ma fahantaa waxaan leeyahay maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa guuleysatay sababtoo ah 5 sano wadanka soo haysay dadku jecel oo ku oynayaan aragnaa ma fahantaa dadku jecel oo ku oynayaan aragnaa dadku dhahaaya marabnana waa aragnay alxamdulillah laakiin dawladnimada taas ah Allah ku guuleeyo mar kaleeto waad imaan doontaa haddaan noo shaa insha Allah aad iyo runtii bilkhayray runtii wax farxad bay xalay ahayd dadka Soomaaliyeed muddo sugayeen laakiin ani xabadaha dibay waxaan leeyahay ummadan Soomaaliyeed waliba ciidamada markii madaxweynaha la doortay ilaa madaxweynihii waa la doortay xabadaha naga daayay Yuusuf ma horta xabadaha dil la wada baaldeg baa horta xabadaha loo riday bilkhayr hadda baaldeg hadina adigu baro horta xabadahan mar walba xabada dhacaana burguurka aad bay horta bilkhayr oo cabsataa wallahi adduunka qof bilkhayr ka cabsi badan xagga xabadaha ma jirto wadiga inta burguurinay maxaa ka daba burguurinay nafti qeylaad naftiga ka jirtay Yuusuf wadiga hadda galnay marxad horta anigu tan horaan bilkhayr soo arkay habeenkii 2017 Febraayo 8 markii aan Faransa la doortay anigu inta waa joog maan aaminsanin in marka dabaaldeg xabada loo ridayo horana dawma arago markii ugu horeysay arka xabada inta la eego dhaca marka anigu habeenkaas waxaan runtii dadkii la joogay maadaama xasan sheekh maxamed madaxweynaha waxaan ciidanku maadaama madaxweynuhu hadda u dambeeyay la joogeen way xanaaqeen markii madaxweynuhu kuwi kale ka xanaaq war kuwi kale ani taala wallahi waxaan isriisa maadaama ummadda inta ugu badan markii la dhaho percentage la dhaho ciidamada xitaa ay farmaajo jeceliin madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo ku ugu hambalyeynaya calishan in qofka liintiis lama qaro xasan sheekhna waxaan leeyahay waa iska dhisi doontaa waa digniin macnaha maadaama ciidamada ay jeceliin ciidamo kale oo rabana ay jiraan ma labada ciidamada isku bilaabay suurtagal dadka inta badan soo tahay cali aad muumina weeyna naxi هاي علي وحصو قري guriga Sheekh Shariif waxba ka bilaabay dagaal ka socda ha runtii dad Soomaaliyeed aad bay xalunto la yaabeen marka waa muhiim waqtiyada doorashadu dadku inay kala fikir iyo aragti duwanaadaan waxa laakiin waxa ceeb ah oo dadka Soomaaliyeed runtii marnaba aan qurux u ahayn in qaab qabaa'il oo yani qabyaalada ku jirto dadku ay u kala saftaan runtii waa la kala aragti duwan yahay qofka uu jecel yahay uu ka dhaxarko mabdiisa iyo nidaamka dawladnimada sidoo dadka ku hogaamin karo ayuu qofku taageeraya taageer waxa leedahay dooq gaar ah leedahay ali adigu hadda fahmilaayeen waana kala socon aniguna musharax gaar ah watay bilkhayrna musharax gaar ah dabcan waanu ku kala aragti duwanay ujeedku waxa weeye marka labada qof ee walaalaha wada dhashay waa inay kala aragti duwanaan karaan kaaga sii daran Yuusuf mid xal aan la yaab dadka isku dilaya ama uu oynay ama isku caynayo aan xaatay madaxweynayaasha meesha fadhi waa ogid xal farmaajo iyo isoo qoslayeen labadii ugu sheekaysiga isma baan dhahaynin aniga saddex musharax ay isla hadlay xasan sheekh iyo farmaajo iyo xasan cali khayr oo isla hadlay ismideen walaalayaalo madaxdu ayaga sakin jecel oo siyaasad la isku hayay ma baahayn badadana iyagu shakhsiyadooda ma wadan Soomaaliyeed dan guud bay haade nidaamka dawladnimada iyo fikirka iyo aragti kala duwanaanshuhuna waa sunne ووحي حالة ولا ماشي كدعي مدحوينيه شالت ولا وحلك كوريتي حاسس إنه ما تدب له شو عليه وأوتشيدين ستيج كي هبينك حسن حل كوريتي وحالة كوري سنها الدور دمدن وحوي وإن ليستورتو لكلا جوليستو ليسكوها نية ليسكوريتش هل كلنا عن كدرو الله نحرسته الشيخ إنه هنا إله نحرسته جناسي شعب فاروق وحن كده جيسي
wuxuu ku jiray in xayatay in dadkii soo dhisay shirka shirka carta madaxweynayaashii madaxweynihii Cabdiqaasim Xasan dadkii in xayatay wax ka soo dhisay dadkaas علشان oo nabadeynta dadku tigi uu kamid ah Soomaaliya nabadeynta uu tagto lagu casuumay wuxuu marka uu dhahay dawlad xumi dawlad aan idaan aan Soomaali waxaan leeyahay shalay dawlad la'aantiinaysi maanta ka fiicanahay maanta dadku siyaasadda inuu isku hayaan maani dawladda noo fiican madaxweynihii noo imaadaan anaga madaxweyne noo ah anigu shalay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii ahay maanta Sheekh Maxamuud ayaa biris waxa laga yaabaa madaxweyne kale inuu imaado aadiyaan marka runtii dadka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aan halkan fariintan fursad uga faa'iideysanayna oo gaarsiinayna aragtida kala duwanaashiyuhu waa inay ka bilaabataa qoysaska walaalka hooyada aabaha inaabtiga eedada abtiga adeerka xaaskaaga ninkaaga awlaadada ilmahaaga runtii marka halkaas in laga bilaabo dabadeetana kor u socoto walaalka markaad kala fikriya aragtidu wantihiin ismana caydaan ismana codaysan isku dhalilaan bade walaalo guryaha wada jooga laakiin ugu kaftamaan kayga guulisanaya waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed meelaha kala duwan jooga ee runtii baraha bulshada isticmaalayaan inay saas oo kala noqdaan oo taa qoysnimada ka soo bilaabaysa tooduna la mid noqoto oo runtii marka la kala guuleystana la soo hambaliyeeyo team walba dhinaciisa runtii team nabadii nolol oo runtii mudooyinkood 5 sano dibay dalka soo maamulay oo waliba sirso oo ku maamulay social media oo dhalinyaro ah maanta fursad ka faa'iideysta team Xasan Sheekh Taageero hallo hambaliyeeyo hala taageero aad عايد هلا جوجيو هلا اسكو حنبليايو ولا ليالو لما دغ حد اسكو دغ غوليست على حد فاهمتين حتى حتى الشيخ وو غوليستي فرماجين وو غوليستان سان امينسنه waa madaxweyne wuu guuleystay wuu tartamay waliba madaxweyne ugu shacabku ugu badan Soomaaliyeed ay taageeraan waa ilaa abtina waa sidoo madaxweynimadiisa ka dhig faahanta waxaan leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo noolo wiligaana noolo inta nolosha ku dhimanna Ilaahay nolol khayr qabta u geliyo madaxweynaheena taashada waa ahayd maanta maanta aad ba maasantiin dabcan bil khayrna doorashada iPhone-ka iga raacay ani waxaan leeyahay dhamaan mas'uuliyiinta dawladda iPhone-ka iga raacay iPhone-ka iga raacay waa maasantiin saaxiibayaal guuleysta dabcan insha Allah riwaayadii maana bilaabay wali laakiin insha Allah waan bilaabi doonaa hadii Allah wada raali ka noqdo guul baan idin rajaynaynaa intaan ku kulmino doono muuqaalka xiga waxaan kaga tagnaa aniga iyo xaajiidaba salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh